jaamacadda Golis ee magaalada Berbera ayaa maanta munaasabad qalin jabin u qabatay 44 arday oo ka qalin jabiyay qaybaha kala duwan ee jaamacadda si gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha iyo kombiyuutarada waxaana munaasabadaasi oo ka dhacday Hotel Mansour ee magaalada Berbera ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Saaxil xildhibaano cuqaal waalidiintii ardaydaasi iyo dadweyne aad u tiro badan ugu horreynna waxa munaasabadaasi furay gudoomiyaha jaamacadda Golis Naasir Xaaji Cali Shire iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sidan maanta waa maalin kale oo ku sugan taariikhda soo jireenka ah ee gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera waa maalin kale oo ka turjumaysa himilooyinka ay higsanayeen dadka reer Saaxil waa guul kale oo u soo horeeyay haddaan ahay gobolka Saaxil mudanayaal iyo marweyn يا ماستر سنتر وحنا هذا ما تسمعني حفلة يا مناسبة قيمة هذا الكل كان يسمعني يعني أفضل أعطي أين كان يسمعني جامعة الجلس أنت البرا وتعدي صدحة وأعطيك طبعا كل يوم صدح يلا ما تعطي أو بتعلم الكمبيوتر يقول يلا ما تعطي أو بتعلم الأقلام annagoo ka duulayna golaha deegaanka ee degmada Berbera siyaasadda dowladda oo hormuud ka yahay madaxweynaha qaranka Axmed Maxamed Silaayo waxaa golahaygu ansixiyey amaanta faraha badan aan cadeynaya anigu inaan lahayn golahaygu wuxuu ansixiyey in sare loo qaado oo la laabo waxbarashada iyo caafimaadka waxa kale oo iyana munaasabadaasi ka hadlay wasiiru dawladda madaxtooyada Maxamed Muuse Abees iyo wasiirka qorsheynta qaranka Naasir Xaaji Cali Shire gudoomiyaha guud ee jaamacadaha Golis waxaana ka mid ahaa hadalladoodii sidan maalin farxad leh oo aad iyo aad u qiimo leh oo aynu waliba aad iyo aad ugu eegayno Berbera Saaxil oo ardaydani ay ka qalin jabinayso oo aynu awal sanadii horena ogeyn waxaanu leenahay Allah barakeeyo cidii ka soo baxday iyo inamadii ku guuleystay xabliye inaba runtii oo badankoodu ay socdaan roobka da'ay roobkaas la soo jiray marka waxa weeye tacab badan ayaa la idin soo galiyay naasir ma tacab badan ku soo galiyay waxaan iska daayay Berbera inaan imaado wiigii markaan iman jiray intaydaan soo galin ama bishii dhowr jeer maalinta naasir loo dhiibana ay joojiyaan dardaaranka waxaan ku soo koobayaa xuquuq iyo waajibaadka lagu leeyahay qofka daayarta ah markuu wax baranayo iyo markuu waxbarashadiisa dhamaystaba qofka daayarta markuu wax baranayo wuxuu leeyahay xuquuqda waxa weeye oo ka mid ah in la barbaariyo in la daryeelo in wax la baro oo duni iyo diinba la baro gabagabadii xafladaasi ina waxa shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii ka qalin jabisay jaamacaddaasi waxay dafcadii saddexaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Golis ee magaalada Berbera Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera